inaan soo sameeyno qorshe howleedkii lagu howlgeli lahaa labada sano oo waqtigaas ka dambaysa marka si qorshe howleed aan u sameeyno ma rabin inaan anaga intaas ka baxno aan meel mugdi ka soo qorqorno waxaan bilownay inaan wada tashi la sameeyno ummadda Soomaaliyeed waxaan ka bilownay qaybaha bulshada ay kala tahay sida dumarka culamaa diinka dhalinyarada dadka baahida gaarka qaba naafada dadka xirfadleyda ah dad qurbaha joogi jiray oo ka yimid oo laakiin hadda wadan gudihiisa dhex jooga dadkan academics ama jaamacadaha jooga aan la kulanno si aan uga qaadano xog haddana waxaan bilownay inaan aadno maamul goboleedyadii oo aan badidood wada tagnay oo aan la kulannay madaxdooda aan la kulannay madaxda baarlamaanka gobolada oo aan la kulannay ururada bulshada xogtaas aan soo aruurin anagoo ka guurayna ayaan soo sameynay qorshe howleed 2 sano ah meel fiican oo marayaa bardu maalin dhaweyd waa ogeedeen October 8 waxaan rabnay daahfur weyn oo ah isu imaadka ugu weynaa oo dastuurka la isugu yimaado oo la isugu yimaado gobolada dhan iyo qaybaha ummadda ay u qaybsato dhan iyo xataa dad dibadda aan ka keeno qurbaha ay muhiimina ay lahayd oo maadaama 2 milyan oo qofood ay degan qurbaha nasiib daro bishii October ma aanan qabanin shirki maxaa yeelay xogaa yaroo isfaham la'aan ayaa waxa naga dhacay gudiyadii baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan waxaan ugu codsaday inaan hakino ra'iisul wasaaraha uu aqbalay wuxuu yidhi hal la galo wada hadallo wadahadalladii dib u galnay meel fiican ay noo marayaan marnawna waan dhammaynaynaa wasiir khilaafkan maamul goboleedyada geed socodka shaqada dastuurka hakad ma jirin waxaan qabaa khilaafka maamul goboleedyada ma ku salaysnayn runtii dastuurka laakiin waa ku soo duldhaceen runtii maxaa yeelay isfaham weyn aan laga dhexeeyay maamul goboleedyada iyo wasaaradda waxaan sameynay madal ay ku midaysan tahay wasaaradaha dastuurka ee maamul goboleedyada iyo wasaaraddeena kaasoo aan 2 goor shirnay kii ugu dambeeyay 2 bil ka hor ee xamar ku shirnay mid kale hadda aan soo wadnay inaan ku shirnaa Boosaaso marka taas kama ahayn laakiin gudiyadana ahayd dad badan waxayna weydiiyeen war shirka aan qaban lahaydeen waa la ka carqaladeeyay marka dhibaato weyn dhacday marka anagu dawlad ahaan waxaan aaminsanahay xukuumad ahaan inaysan dhibaato weyn dhicin laakiin wax fiican inay dhaceen oo ah inay adduunweynaha arkay in hay'adaheennii dastuuriga ah inay shaqeynayaan hay'ad dastuuri ayaa rabtay oo fulinti ah oo wasaaradda ah inay wax qabato hay'adihii kaleeto oo dastuuriga ahaa waxay yiraahdeen shaki baa jiray ayaan la qabanin waana ka ogolaanay taas aniga waxaan qabaa inay tahay wax fiican haddaanan gacan ka hadal jirin oo mataqaanaa waxyaalo kale jirin oo la isku haysto arrimo dastuuri ah wax fiican waaye waxaan qabaa inaan taas ku faanna in hay'adaheennii inay shaqeynayaan oo ka bacdina wada hadal aan dhex galnay wada hadalkina hadda dhammaanta hadda yahay isqabsiga dastuurka haddii dastuurka la maystiro isqabsiga madaxda maamul goboleedyada dowladda dhexe ma dhamaan karaan waxaan aaminsanahay in haddii dastuurka sida la rabo loo wajaho oo si loo wada midaysan yahay loo wada wajaho in wax fiican ka soo bixi karaan wax fiican ka soo baxana haddii heshiis fiican ka soo baxo in dhammaan doonaan sababta waxa weeye maamul goboleedyada hadda waxyaalaha ay ku doodaan waxay tahay war hala kala caddeeyo waxa awoodda ay leedahay maamul goboleedka iyo awoodda ay leedahay dowladda dhexe taasna in laga helo caddayn fiican way fiican xukuumaddana taas waxay rabtay inay soo daahfurto arrintaas October 8 ilaa 10 shirkii weyn la qaban lahaa wixii aan soo daahfur lahayn habkii lagu gali lahaa wada heshiiskaas laakiin howlada siyaasadeedna soo dhexgalay oo naga carqaladay haddana waxaan qabaa wax fiican socdo madaxdii maamul goboleedka iyo madaxweynihii iyo prime ministerkii shir isdaba jooga u socdo jawigoodana hadduu fiican yahay aan fahamsanahay aniga shalay waxaan aniga siiyey warbixin siiyey guddiga xoghaynta oo ah
ururkan maamul goboleedka ay samaysteen oo la yiraahdo ururka iskaashiga aan siiyey mataqaanaa xog ku saabsan habsamida loo wadi lahaa dastuurka runtiina iyaga laftigooda si fiican isu fahamsannahay